waa mahadsan tahay walaal macaan. Su-aashan aad aragtaan Canada sponsorship ayuu rabaa ninkan inuu ogaado, especially qaybtan 5 groupka ah. Okay, 5 groupka horta muuqaalo badan ayaan kaga hadlay. Cidii doonaysa ayuu faahfaahsan waxay ka heli karaan YouTube-kayga iyo Facebook-kayga insha Allah. dhanka kale waxaan leeyahay dadka ama su-aashaasi jawaabteedii waxaan leeyahay haddii aad doonayso 5 group inaad hesho, number 1 waxaa u baahan tahay horta qof ehelkaaga ah inuu joogo dalka Canada. haddii marka qofkaasi ehel ku ah, walaal ku ah, saaxiibo ku ah, ama wax kale xataa idin dhexmaran, at least qof adiga wakiilka ah hadduu joogo Canada. qaybtii labaad ayaan usoo gudbay. haddii marka qofkaasi Canada uu ku joogo aad xaqiiqsato, waxaa markaa waajib ah dadkaasi in ay ahaadaan dad 5 ruux ah oo team up sameynayo, team noqonayo. 5 ruux iyo wixii ka badan waa la doonayaa, laakiin 5 ruux wixii ka yar lama doonayo. so 5taasi ruux waa in bangiga lacag fiican ay ugu jirto oo adiga ay kugu qaabili karaan, ayna kugu hayn karaan 1 sano. haddii aysan groupka ku jirin, xataa 5 qof intay isku tagaan ayay groupka aas-aasi karaan, warqada ayay saxiixayaan, lawyerka ayay u tagayaan. kadib markii loo soo ogolaado in ay ka mid noqdaan, groupkaasi, markaasi waxay sameynayaan in ay adiga ama qofkii markaa ay doonayaan inay sponsor usoo sameeyaan, sidaasna maaragtay ay wadanka ku keenaan qofka. marka muhiimaddu waxay tahay in 5 qof iyo waxa ka badan ay ahaadaan. 5 qof iyo wixii ka yar lama ogolaanayo, laakiin 5 qof kasoo bilow tirada 5 ilaa iyo wixii ka badan waa okay. lacag inay bangiga ugu jirto, 1 sano inay adiga ku haynayaan. qofka loo soo dirayo barnaamijkana waa in uu haysto kaar qaxooti. hadduu kaar qaxooti uusan haysanin lama aqbalayo.